Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Salaamullaahi calaykum dhammaan asxaabtana daawanaysa halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. Aniguna waa Cabduuli Mucallim Malto. Waxaadna ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo wararkii xanta suuqa kala iibsiga. Qodobada ay idinku hayo waxaa ka mid ah Andre Iniesta oo ka hadlay xaaladda adag ee hadda ku jirta kooxda Barcelona iyo sida ay kaga gudbi karaan. Muxuu tababar Antonio Conte ka yiri guushii weyneed ee xalay ka gaareen kooxda Shakhtar Donetsk. David Silva oo 10 sano kadib dib ugu laabtay horyaalka Spain. Barcelona oo xaqiijisay in qalin lagu sameeyay goolahayo Marc-Andre ter Stegen iyo muddada uu garoomada ka maqnaan doono. Shaxda riyada Frank Lampard ee Chelsea oo la ogaaday. Wararkaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan idinku hayaa ee daawasho wacan. haddaba intaynu barnaamijka u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ha ka hilmaamin inaad subscribe saartid gambaleelkana furutid si aad u hesho barnaamijyada cusub hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid halyeeyga Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Andres Iniesta ayaa dhambaal muhiim ah u diray kooxdiisii hore ee Barca marka loo eego dhibaatada ka haysta heer kasta taasi oo si weyn uga sii dartay kadib fadeexadii ka soo gaartay kulankii wareeg dhamaadka ee tartanka Champions League naadiga Bayern Munich. Naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kabaha la dulmartay Barcelona oo ay ku garaacday 8-2 kulan qayb ka ahaa 8 dhamaadka tartanka xiisaha badan ee Champions League. Shalay maamulka kooxda Barcelona ayaa qabtay kulan dheer oo ay kaga wada hadlayeen xaaladda kooxda iyo inay qaataan go'aano muhiim ah. Waxaana go'aanadii la qaatay qayb ka ahaa shaqo ka ceeritii tababarkii Kisentie iyo go'aaminta taariikhda la qaban doono doorashada madaxtinimo ee kooxda taas oo dhici doonta Mars 2021. Haddaba halyeygii hore ee kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa aaminsan in xalka ugu fiican ee Blaugrana kaga gudbi karta dhibaatada haysata ay tahay inay midoobaan dhinacyada oo dhan oo midba midka kale ka shaqeeyo danaha guud ee kooxda. Andres Iniesta ayaa bartiisa rasmiga ah ee Twitter ka soo dhigay qoraal wuxuuna ku yiri waxaan markasta u midoobi doonaa inaan dhisno kooxda adduunka ugu fiican. dhinaca kale tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii weyneed ee xalay kooxdiisa ka gaareen Shakhtar Donetsk tartanka UEFA Europa League. kooxda Inter Milan ayaa iska xaadirisay finalka tartanka Europa League kadib markii ay ku garaacday kooxda Shakhtar Donetsk 5-0 kulan wareegga fardhamaadka ee tartanka UEFA Europa League. waxayna Nerazzurri goolasha kaga mahad celinaysaa ciyaartoyda kala ah Lautaro Martinez oo 2 gool ah, Lukaku oo 2 gool ah iyo Danilo D'Ambrosio oo 1 gool u dhaliyay. haddaba tababare Antonio Conte ayaa kadib kala hadlay warbaahinta dareenkiisa kadib guushii weyneed ee ka gaareen kooxda Shakhtar Donetsk. wuxuuna yiri waxaan u maleynayaa inaan gaarnay tartanka finalka UEFA Europa League kadib markii aan la ciyaarnay koox aan ka dhignay inay u muuqatay inay ka awood yar tahay sidii ay ahayd, laakiin Shakhtar Donetsk waa koox haysata xidiga tayo sare leh. waxaan haystaa koox aad ugu wanaagsan gudbinta kubadaha sidoo kalena leh xawaare sare. waxaan ku qasabtay iyaga inay difaactamaan. waxaan ku ciyaarnay si geesinimo leh iyo qorshe sax ah. waxaan ciyaarnay ciyaar reer Yurub ah. waxayna ciyaartoyda mudan yihiin ammaan. qaab ciyaareedka wuxuu ahaa mid cajiib ah. intaas kadib Antonio Conte ayaa ka hadlay ciyaarta finalka tartanka UEFA Europa League oo ay jimcaha soo socota la ciyaari doonaan kooxda Sevilla. wuxuuna yiri Sevilla waxa ay leedahay khibrad badan. waxaan u maleynayaa inay ku guuleysteen tartankan 4 jeer 6 sano ama 7 sano ee la soo dhaafay. sidaas oo ay tahay annagana waxaan haysanaa xamaasad, harraad iyo rabitaan oo aan dadka kaga yaabin karno. dhankaasi horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City ayaa waxa ka tagay ciyaaryahankeedii David Silva. kooxda reer Spain ee Real Sociedad ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester City ee David Silva. Real Sociedad ayaa war rasmi ah ku shaacisay website-keeda waxay ku sheegtay inay heshiis la gaartay David Silva isla markaana uu saxiixay qandaraas 2 sano ah kaasoo gaaraya ilaa 2022. David Silva ayay kaga dhigan tahay ku biiritaankiisa kooxda Real Sociedad inuu dib ugu soo laabtay jawiga horyaalka La Liga ee dalka Spain
kadib muddo 10 sano uu ka maqnaa. waxaana xusud mudan in David Silva uu horay uga soo ciyaaray kooxaha Valencia, Eibar, Celta Vigo ee dalka Spain ka dhisan ka hor inta uusan ku biiran kooxda Manchester City. laacibkan reer Spain ayaa muddo 10 sano ah u xirnaa maaliyadda Sky Blue waxa uu kula guuleystay horyaalka Premier League oo 4 jeer ah, Carabao Cup oo 5 jeer ah, Community Shield oo 2 jeer ah iyo FA Cup-ka oo 2 jeer ah. waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanada ay ku duushay kooxda Manchester City. dhinaca kale shaxda riyada Frank Lampard ee Chelsea oo la ogaaday. kooxda Chelsea ayaa qorsheynaysa inay sii wado xoojinta kooxdeeda ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub, iyadoo la filayo inay dhowr xidig oo cusub yimaadaan ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub. tababare Frank Lampard ayaa doonaya inuu dhiso koox xilli ciyaareedka dambe ku tartanta horyaalka Premier League iyo waliba Champions League, isagoo haatanba sameeyay dhowr saxiix oo muhiim ah. Chelsea ayaa la filayaa inay suuqa geliso lacag ku dhow 250 milyan oo euro si ay u soo yareyso farqiga ay ka dambeyso kooxaha Manchester City iyo Liverpool. kooxda Blues ayaa haatanba la soo saxiixatay xidigaha Hakim Ziyech, Timo Werner, laakiin Lampard ayaa halkaas ku joogsan doonin, isagoo wadi doona xoojinta kooxdiisa. Lampard ayaa haatan doonaya inuu kooxdiisa ku soo daro khadka dhexe, goolhaye, daafac dhexe iyo waliba garabka daafaca bidix. wargeyska Daily Express ayaa soo saaray shaxda riyada ee Frank Lampard uu doonaya inuu xilli ciyaareedka dambe ku shaqo galo. shaxdan waxa ay noqon doontaa 4-2-3-1. waxa uu goolhayaha u doortay Onana, halka daafaca midig uu ka ciyaari doono Azpilicueta, daafaca bidixna uu ka ciyaari doono Chilwell. labada daafac dhexe waxa uu doortay Zuma iyo Rice, halka labada burburiye uu u doortay Kovacic iyo Kante. labada garboodna waxaa ka ciyaari doona Pulisic iyo Ziyech, halka Havertz uu ka ciyaari doono Diyeshaha. noobahana waxa uu doortay Timo Werner. kooxda Barcelona oo weli sii wado shaqadeedii nadiifinta waxa ay shaqadii ka ceerisay agaasime Eric Abidal kadib ceebtii Champions League ka soo gaadhay. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday inuu shaqadii ka tagay agaasimaheedii kubadda cagta Eric Abidal oo qaaday wadadii tababare Kiki Setien oo isaguna shalay shandadihiisa ka qaatay kooxda markii si rasmi ah looga ceeriyay shaqada. Eric Abidal ayaa ahaa agaasimaha kubadda cagta Barcelona, wuxuuna sanadihii ugu dambeeyay qayb ka ahaa maamulka sare ee go'aamada ka soo fulaan, iyadoo looga dambeeyay hagidda tababarayaasha iyo shaqo maalmeedka kooxda. Abidal oo horay ugu ciyaaray Barcelona waxaa shaqadiisa saameysay dhibaatada kooxda ku habsatay xilli ciyaareedkan oo aana wax koob ah ku guuleysan, isla markaana ay Bayern Munchen qaab xasuuq ah ugu soo ciribtirtay tartanka UEFA Champions League. weli waxaan ku jirnaa wararkii kooxda Barcelona. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in qaliil lagu guuleystay lagu sameeyay goolhaye Marc-Andre ter Stegen, iyadoo sidoo kale xustay muddada uu garoomada ka maqnaanayo si uu u soo kabsado. qaliin guuleystay ayaa goolhayaha koowaad ee Barcelona Marc-Andre ter Stegen looga sameeyay dhanka jilibka, waxaana la filayaa inuu maqnaado ku dhowaad ilaa 3 bilood. waxaana la filayaa in marxaladaha hore ee horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub uu seego goolhaye ter Stegen, maadaama la isku diyaarinayo in horyaalka Spain kala ciyaareedka cusub la bilaabo 12 bisha Sebtembar. goolhaye ter Stegen ayaa shabaqiisa gool ka ilaashaday 15 kulan, 46 kulan oo uu saftay Barcelona tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii dhamaaday. dhinaca kale madaxweynaha Barcelona oo xaqiijiyay tababaraha cusub ee Barcelona hogaamin doona. madaxweynaha kooxda Barcelona Jose Mario Bartomeu ayaa xaqiijiyay in Ronald Koeman uu noqon doono tababaraha cusub ee kooxda Blaugrana, isagoo bedelaya tababarihii la ceeriyay ee Kiki Setien. shalay Isniin ayaa la ceeriyay tababaraha reer Spain kadib markii ay kooxda Barcelona ceeb lama arkaan ah ku dhameysatay xilli ciyaareedka, iyadoo ay guuldarro 8-2 ka soo gaartay kooxda Bayern Munich wareegga 8 dhamaadka UEFA Champions League. macallinkii hore ee kooxaha Everton iyo Southampton ayaa goor sii horeysay maanta ka degay magaalada Barcelona, iyadoo kooxda reer Spain ay heshiis magdhow ah la gaartay xiriirka kubadda cagta Holland maadaama uu tababare u yahay xulka qaranka Holland.
Barcelona ayaa ogolaatay inay xiriirka kubadda cagta Holland siiso 5 milyan oo euro oo magdhow ah maadaama ay la wareegeen tababarahoodii. Madaxweynaha Barcelona ayaa goordhow shaaciyay in Ronald Koeman uu noqonayo tababaraha cusub ee Barcelona. weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. waxaanu soo gaarnay wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ee caawa oo talaadaha ee qoreen wargeysyada iyo saxiixyadii la dhameystiray maanta. xanta wararka suuqa kala iibsiga xagaaga ma aha mid joogsato 24 saacadood, iyadoo warar cusub ay had iyo jeer ka soo kordhaan maadaama ay kooxaha suuqa ugu jiraan xidiga ay ku sii xoojiyaan kooxahooda. haddaba waxaan caawa idii soo ururinay wararkii ugu dambeeyay ee ay warbaahinta Yurub ka qortay suuqa kala iibsiga xagaaga iyo heshiisyadii la dhameystiray saacadihii ugu dambeeyay. golhayaha Ingiriiska ee Joe Hart ayaa dhameystiray ku biiritaankiisa kooxda Tottenham isagoo u saxiixay heshiis 2 sano ah. wuxuu kursiga keydka u fadhin doonaa golhaye Hugo Lloris. golhaye Claudio Bravo ayaa si rasmi ah uga tagay kooxda Manchester City kadib 4 xilli ciyaareed uu kooxda joogay isagoo ku dhow inuu ku biiro kooxda Real Betis. kooxaha Real Madrid iyo Granada ayaa heshiis ka gaaray in daafaca Real ay leedahay ee Jesus Vallejo uu amaah ku sii joogo kooxda Granada. kooxda Bayer Leverkusen ayaa ku adkeysanaysa go'aankeeda la xiriira xidiga garabka kaga ciyaara ee Havertz, iyadoo u sheegtay Chelsea inay bixiso 9 milyan oo gini ama inay ka quustaan saxiixiisa. waxaa qoray wargeyska London Evening Standard. xidigii hore ee Chelsea Pedro ayaa tijaabada caafimaadka u maraya kooxda AS Roma. si kastaba lama filayo in xidigii hore ee Barcelona lagu dhawaaqi doono heshiiskiisa ilaa iyo isbuuca dambe. waxaa qoraya wargeyska Tutto Mercato. xidiga diidan inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda Bayern Munchen ee David Alaba ayaa Premier League u soo wareegi kara 2 isbuuc ee soo socota, iyadoo daafaca boosaska badan ka dheeri kara ay ku tartamayaan saxiixiisa kooxaha Manchester United iyo Chelsea, halka Manchester City ay quus ka taagan tahay saxiixiisa. waxaa qoraya wargeyska Sky Sport. agaasimaha kooxda Lazio ee Ingilterra ayaa weerar ku qaaday David Silva kadib markii uu halyeyga Man City ku biiray kooxda Real Sociedad bedelkii uu wareegi lahaa kooxda Talyaaniga. David Silva ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ka baxay heshiiskii Lazio isagoo u wareegay kooxda Real Sociedad. Ingilterra ayaa warbixin uu ka soo saaray David Silva waxa uu ku yiri: waxaan maqlay in David Silva uu wareegay Real Sociedad. ixtiraam weyn ayaan u hayaa ciyaaryahanka, laakiin raginimo ahaan ixtiraam uma hayo. gabadha maamusha suuqa kala iibsiga Chelsea Marina Granovska ayaa ogolaatay tababara Frank Lampard inuu la soo wareego 3 daafac ee kala ah Ben Chilwell, John Stones, Lewis Dunk. waxaa laga soo xigtay wargeyska Daily Star. waxaa intaa inoo weeg wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay oo aad kala socoteen barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. waxaana idii soo gudbinaya aniga oo Cabdulle Macallim Alto. waanigoo idin leh kulanti dambe iyo barnaamijkan lamid ah. fi amaanillah.